السلام عليكم أصحابتي قيمها بدن كسو دوادا يوتيوب channel ka Ismaaciil Cabdulle degdeg war isdaba joog ah oo si xawli ah ugu soo dhacaya gudaha Soomaaliya iyo caalamka ayaa hadda soo taraya laba diyaaradood oo sida hub culus iyo saanad ciidan ah ayaa si lama filaan ah ugu degay magaalada Dhuusamareeb maxaa ka socda gudaha Galmudug yaa ka dambeeya dhaqdhaqaaqan military ee cusub dhanka kale Koonfur Galbeed waxa ka socda isbedel siyaasadeed oo culus magacaawis lama filaan ah xilka qaadis degdeg ah iyo khilaafyo qarsoon oo cirka isku shareeray ciidamada nisa oo kaashanaya saaxiibada caalamka ayaa fuliyay howlgal qarsoodi ah oo loogu dilay 9 xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab halkaasna lagu gubay gaadiidkoodii dagaalka laakiin su'aashu waxay tahay matani bilow cusub baa mise waa dagaal si xoogaysanaya baydhabo xaaladdu waa mid kacsan madaxweynaha ayaa la kulmay hadallo kulul oo si toos ah loogu yiri maxaa dhab ahaan ka dhacay magaalada sidoo kale wararka caalamka ayaa iyaguna sheegaya Mareykanka oo qirtay in diyaarad F-35 laga soo riday iyo xiisad sii kordhaysa oo u dhaxaysa Israa'iil iyo Iiraan ma ku sii siiqaynaa dagaal weyn dhaqaaqin hadaba daawade sababtoo ah waxaad maqli doontaa daqiiqadaha soo socda waa warar isku xiran oo xog qarsoon iyo falanqayn qoto dheer leh oo aan horey loo soo bandhigin wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in laba diyaaradood oo sida hub iyo saanad ciidan ayaa si rasmi ah ugu degeen garoonka diyaaradaha arrintan ayaa la rumaysan yahay inay qayb ka tahay qorshe ballaaran oo lagu xoojinayo howlgallada dhanka al-shabaabka qubarada amniga ayaa tilmaamaya in dawladda federaalka ay kordhisay diyaar garowga dagaalka Galmudug ayaa noqotay xarun muhiim ah howlgallo waaweyn ayaa socdaan hogaamiyaha kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed ayaa magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada laakiin isla waqtigaas gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa shaqo ka joojiyay mas'uul muhiim ah tani waxay muujinaysaa khilaaf hoose oo jira falanqeeyaasha waxay leeyihiin waxaa jira loolan awood oo qarsoon oo ka socda maamulka dhexdiisa ciidamada nisa oo taageero ka helay saaxiibada caalamka ayaa sheegay inay dileen 9 xubnood oo al-shabaab ah gubay gaadiid dagaal ah howlgalkan ayaa ka dhacay goob muhiim ah oo ay ku sugnaayeen kooxda tani waxay muujinaysaa sirdoon xoog leh iskaashi caalami ah oo sii kordhaya sidoo kale ciidanka harmacad iyo ciidanka xoogga dalka ayaa howlgal wadajir ah ka sameeyay deegaanka Xarshanle waxaa hogaaminaya taliyaha guutada 6aad saraakiil sare oo harmacad ah natiijada goowihii al-shabaab la burburiyay dhaqdhaqaaqyadii la hakiyay baydhabo waxaa ka dhacay arrin lama filaan ah kadib markii musharax Maxamed Farkeeti oo si toos ah ugu hadlay madaxweynaha hadalkiisa waxaa ka mid ahaa soo dhaweynta ha u qaadan amarna wuu soconaya arrintan ayaa keentay xiisad siyaasadeed kala aragti duwanaansho su'aalo badan oo ku saabsan hoggaanka warar kale ayaa sheegaya magaalada oo noqotay meel ciidan badan joogo dadka oo cabsi ka muujinaya hoobiyaal su'aasha ugu weyn ma jirta halis amni oo sii kordhaysa dhanka caalamka warar culus ayaa soo gaaraya Mareykanka oo qirtay in F-35 laga soo riday Israa'iil oo ku hanjabtay weeraro cusub oo ka dhan ah Iiraan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in duqeymaha la sii wada doono tani waxay keeni kartaa dagaal ballaaran oo xiisad gobolka ku faafta saameynta dhaqaale oo dunida oo dhan gaarta marka la isku daro dhammaan warkan Soomaaliya dagaal xiisad iyo siyaasado isbiirsaday baydhabo xarun xiisad leh caalamka Qatar dagaal weyn waxay muujinaysaa adduunka u galay